wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in maalinkii labaad uu galay dagaal safmar ah oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaano ka tirsan ismaamulkaasi gaar ahaan dagaaladan oo shalay galinkii dambe qarxay waxa ay ka soo bilowdeen Yeed, Aato iyo Washaaqo. deegaanadaas ay weerareen al-shabaab waxaa intooda badan fariisimo ku leh ciidamo ka tirsan kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ee Liu Booliska. hase ahaatee afhayeen u hadlay ururka al-shabaab waxa uu sheegay inay la wareegeen Yeed iyo Aato islamarkaana ciidamadii Liu Booliska ee halkaasi ku sugnaa ay ka qabsadeen agab military. hadda dagaal ayaa dib uga qarxay qaybo ka mid ah isla gobolka Bakool gaar ahaan ceel barde ayaa laga soo warinayaa in al-shabaab weerar dhowr jiha ah ay ku qaadeen halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiyaana. wararkii ugu dambeeyay ee halkaas laga helayo waxa ay tilmaamayaan in halkaasi isgaarsiintu ay jareen kooxda al-shabaab isla markaana daryanka madaafiic culus ayaa dadka qaar ay wariyeen in laga maqlayay saacadihii aynu ka soo gudubnay ceel barde. al-shabaabkana waxay doonayaan inay gudaha u galaan isla markaana ay laayaan ciidamada halkaasi ku sugan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu faray guud ahaanba hay'adaha amniga iyo kuwa gargaarka in si degdeg ah ay gurmad ugu sameeyaan deegaanada Bakool ee al-shabaab dhibaatooyinka ay ka wadaan. waxaana ra'iisul wasaaraha uu tilmaamay in dhibaato xooggan ay ka jirto gobolka Bakool al-shabaabna ay wadaan dagaalkii ugu xoogganaa oo u muuqda in muddo ah ay soo qorsheenayeen. maadaama isgaarsiintu ay maqan tahay lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah ee jira, balse deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee Yeed iyo Aato ayaa ciidamo ka tirsan kuwa Liu Booliska waxay dib uga bilaabeen maanta howlgallo ay sheegeen inay ku baacsanayaan al-shabaabkii deegaanka soo weeraray.